horta waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed oo dhageysanaya inay ogaadaan dhagahooda waxaa lagu celceliyaa dimuqraadiyad waaye dowladnimada qori isu dhiib waaye dalkana waxaa loo gooyay 4 sanaba inay doorasho dhacdo ilaahay baan kugu dhaarshay qofka intaa leh meeqad Soomaali hadda dadka dhageysanaya iyo adigaba meeqad maqlaysa 4 sanaba mar inay doorasho dhacdo isku mandate ba ma ahayn dowladii so haran qat'an ma aha marka kalan hadalka afkiisa ka soo baxay burburkii kadib waa ku sheegay dowladda madaxweyne Ali Mahdi Maxamed oo la soo dhisay 91kii 2003 sano Cabdi Qaasim aha goormay 4 sano ahayd 4 sanaba mar mandate-keeda 3 sano ah laakiin processka intii lagu jiray imbigaati meeqa la fadhiyay eldoreed meeqa la fadhiyay dhameystirkii shirkii dib u heshiisiinta carta oo intii ka maqnayd lagu soo daray bay ahayd Cabdi Qaasim 4 sano madaxweyne ahaa mandate-kiisana 3 sano ah halkaas sano waxaa lagu heshiinayay sida hadda taagan sidii doorashada u dhici lahayd oo dowladda isbedel ugu imaan lahayd yaa kordhiyay marka baarlamaan ma kordhiyay ma ahayn legitimacy wuxuu ahaa charterkii oo artama kordhiyay ma kordhin charterku meel gaar oo ahaa TNG la dhahay federal ma jirin marka hal sano waxay ku timid legitimacy-ga Cabdi Qaasim madaxweynaha kaliya la yaqiin taa waxaa u daliila Maxamed Cabdi Yuusuf prime minister noqday iyadoo shirka aan jirno official delegate-ka ahaa aniga dowladda baarlamaanka aan prime minister noqday muxuu noqday iyadoo dowladdii ra'iisul wasaarihii iyo gudoomiyihii hadda waa dhinteen ra'iisul wasaare Xasan Abshir iyo gudoomiyaha Cabdulla Deerow ay hogaaminayaan oo aan 2 sano meesha fadhinay baa la soo noqday xildhibaanadii beelahooda waa la bedesheena la yiri sida haddaba looga saaray Puntland 8 xildhibaan laga saaray soo ma maqlin hadda ka hor Ismaaciil Buuba iyo Ali Baashi baa laga saaray soo ma ahayn xilligii Shaadan Madoob gudoomiyaha ahaa saas oo kala loo saaray xildhibaano magaciil raba hal dhaho mar raba aniga wixii kun kitaab iyo la dhahay inaan dhaho laakiin prime minister Maxamed Cabdi Yuusuf ka noqday waa dhamaaday mandate-ka dowladda ogow aqoonsiga Mustafa Mukhtaar Guudo oo gudoomiye baarlamaan ku yahay mandate-ka dowladda ka bacdi uu dhamaaday 2 sano iyo bar waxaan u fadhinay madaxweyne Cabdi Qaasim Salaad Xasan ayaa retreat intii leaders committee ayaa shirka hogaaminaya 24 waxaa la geliyay hal qodob oo madaxweynihii xilligaas Cabdi Qaasim Salaad Xasan ayaa loo geliyay maanta waxa horta cid walba ogaanaysa legitimacy-ga hadii la diido madaxweyne farmaajo kaliya ahaanay horta